warbixintana maanta ayaan waxaan ku eegi doonaa atiirshada guulaha u saaxiibka ah Alia Bhatt kareenada cusub ee Bollywoodka maadaama ay taageero waali ah ay u tahay Kareena Kapoor Khan. Alia Bhatt ay hadda waxa ay ka mid tahay gabdhaha ugu guulaha badan iyadoo xilli degan ay ku qaadanayso filim jelista. filmadeeda ugu dambeeya sida Raazi iyo Gully Boy ayaa guli lixaad ah gaareen kuna qaadatay atiirshada ugu fiican ee Hindiya ee bixiso shirkadda Filmfare Awards. haddaba waxaan warbixintana ku eegi doonaa hadallada dhiirigelinta ah ee Alia Bhatt ka sheegtay goobaha ay dadka isugu yimaadaan. haddii aanan dhihin ma aqaan sideen ku ogaadaa, haddii aanan weydiin su-aal sideen ku helaa jawaabta. sanadkeedii 25aad Alia ayaa kal hore noqotay atiirshada lagu doondoonista badan yahay Bollywoodka. kol hore ayay ismuujisay oo waxay nolosha ka damacsanad ayay ku dhaqaaqday, halka kuwa qaarna ay sanado badan aan weli isu soo shaabixin. waxay ka dhabaysay inay ka run sheegto eriyadeeda iyo inay wax waliba sida ay rabaan ay u samayso. xilli walba ay dadka i weydiiyaan guulahayga oo wax fiican ayaa samaynaysa maxaad dareentaa, taas ayaa samaysa ay tanba ahaanteeda waan samaynayo wax fikrad ah kama haysto sida wanaagsan aan u samaynayo iyo waxa ay igula muuqato haddii ay yihiin wax aad iigu fiican amaba igu dhaqsiyaha badan ama inaan ka gudbayo. waxaan u maleynayaa haddii aan fariisto dib u qiimeyn aan ku sameeyo tallaabo walba oo aan qaadayo, waxaan haddaba qaadayaa nolosheeda si dhab ah. Alia Bhatt ayaa haysata abaalmarinta atiirshada ugu wanaagsan ee India ee bixiso shirkadda Filmfare Awards 3 jeer, waxayna ku qaadatay Raazi, Gully Boy iyo Urta Punjab, halka abaalmarinta oo ah Best Critics atiirshada labaad ee haysato 1 jeer. atiirshada hadalkeeda sii wadata ayaa dhinaca kale waxay sheegtay, waxaan rabaa in lagu xasuusto fiilmada dhan ee aan qaybta ka ahaa, waana sababta aan nooca saameynta aan ugu yeelanayo fiilmadeeda sida caruurteeda. horaanteeda waa waxaan aad ugu nugulaa, sidoo kalena aan aad ugu baahnaa inaan caddeeyo iyo inaan sameeyo waxaan had iyo jeer ka hadlaa waxa haysan iyo waxa aan awoodo inaan si fiican u samayn karo, balse halka aan ka cabsan lahaa inaan dadka lala meel dhigo, waxaan awoodaa inaan ka ficnaado. waxaan isku dayaa inaan ku dhaqaaqo hab nooca nolosheeda ugu fiican, ayay tiri atiirshada Alia Bhatt. haatana waxaa u diyaarsan oo dhowaan loo soo saari doonaa filimkeeda ee la wado ninka lagu xanto Ranbir Kapoor iyo sidoo kale tooro ugu guulaha badan Hindiya uguna faca weyn Amitabh Bachchan, inkastoo uu dib u dhigay cudurka coronavirus iyadoo la hubo ama la rajeynayo in 21ka ama sanada 2021 filimkaas in la daawado iyo horaantaba sanadkan ugu dambeeya ee 2020. waad ku mahadsantahay dhegeysiga warbixinta. haddaad ka heshanay asxaabtaada la wadaag.